filimku wuxuu ku bilaabanayaa laba wiil oo agoon ah kuwaas lagu kala magacaabo Shin iyo Bayo. Labadan wiil ayaa dhawaan waxa soo iibsaday oday lagu magacaabo Wow si ay ugu adeegaan. Inkastoo ay ku nool yihiin nolol adag, waxay isku dayayaan inay noolaadaan oo istaryeelaan. waxayna xitaa leeyihiin riyo isku mid ah in mar uun ay noqdaan mid ka mid ah generaalada waaweyn maadaama uu hadda jiro generaal weyn oo lagu magacaabo Okiya. waqtigooda firaaqada ah kadib markay ururiyaan alwaax ay ka jarjareen geedaha, Shin iyo Bayo ayaa si wada jira ugu tababaranaya keynta dhexdeeda iyagoo isticmaalaya seefa ay ka sameeyeen alwaax. sanadii la soo dhaafay waxay had iyo jeer si wada jira ugu tababaranayeen si ay geesinimadooda kor ugu qaadaan. kadib markay marar badan ku celceliyeen, waxay ugu dambeyntii isu bedeleen haliyeeyo waaweyn oo xirfad u leh dhinaca seefta. maalmaha ka mid ah markay ku guda jiraan ku dagaalanka seefta, waxaa soo muuqanaya generaal weyn oo lagu magacaabo Chang isagoo ammaanay Bayo maadaama uu aad u yaqaano ku dagaalanka seefta. maalintii xigtay, generaal Chang ayaa u imaanaya odayga haystay labada wiil, wuxuuna ku wargelinayaa in xisbiga boqortooyadu ay wadaan qorista askar. ujeedka kaliya ugu yimidna waa inuu odayga siiyo wiilka lagu magacaabo Bayo si uu uga dhigo ciidamada gaarka ee loo tababarayo boqorka. inkastoo Shan uusan helin fursadda uu helay Bayo, wuu ku faraxsan yahay isla mar ahaantaana uu taageerayaa Bayo si uu u gaaro riyooyinkoodii mid ka mid ah. habeenkaas koorinta uusan bixin, waxay labadoodiba ku tababaranayaan bannaan cidla ah. midba midka kale ayuu dhiirigelinayaa. Shin waxaa ka go'an inuu si adag u tababarto inta uu ka maqan yahay Bayo maadaama hal riyo ay ka dhaxayso oo ah inay generaal noqdaan. way ismacsalaameynayaan. maalmaha soo socda, Shin wuxuu bilaabay in si taxaddar leh uu tababarto, wuxuuna awoodiisa ogaanayaa markuu safety looxa ahayd uu ku dhufto mid ka mid ah dhagxaantii ag taallay, isla mar ahaantaana dhagixii uu laba u kala go'ay. dhowr maalmood kadib, Shan marka uu rabo inuu guriga u nasasho tago, wuxuu la yaabay imaanshaha Bayo oo aad u dhaawacan. Bayo ayaa isla markaana u sharaxay in afgembi uu ka dhacay boqortooyadii, halkaas oo boqorkii talada hayay uu soo weeraray walaalkii ka yar si uu boqorka u dilo. ka hor inta uusan dhiman, Bayo wuxuu ku amray Shin inuu tago tuulada ku taala khariiradan uu waday, wuxuuna u sharaxay Shin inuu la kulmi doono ciidamo markaa meesha jooga, isla mar ahaantaana ka caawinaya inuu hadafkiisa gaaro. habeenkaas, Shin wuxuu u ordayaa dhankii tuuladii uu u sheegay Bayo, laakiin jidka dhexdiisa waxaa kaga hor imaanaya koox burcada. sidaa awgeed wuxuu ku qasbanaanayaa inuu la dagaalamo. nasiib wanaag, tababarkiisii uu muddadaas soo waday wuxuu si fudud uga adkaan karaa dhammaan xubnihii kooxdii tuugada ahayd. kadib markuu safarkiisa sii watay, Shin ayaa ugu dambeyntii gaaraya tuuladii, wuxuuna meesha ka helay aqal yar oo uu degan yahay boqorku. boqorkaas oo lagu magacaabo Qiin, maadaama boqortooyadiisi laga cayrsaday wuxuu degay meeshan yar. Qiin ayaa markaa u sharaxay in generaal Jan uu si badheer u keenay Bayo maadaama labadoodu ay si caadi isugu eg yihiin wajiyadoodu. wuxuu doonayay inuu khiyaaneeyo saraakiisha boqortooyada. Bayo ayaa loo dilay maadaama uu eg yahay generaal Jan, nin dhan oo nin kale lagu shabahay oo loo dilay. la yaab soo ma? dhan kale, ciidamadii boqorka walaalkii waxay yimaadeen guriga odayga labada wiil uu ku hayay, isla mar ahaantaana ay arkeen Bayo oo mar hore naftii ay ka baxday. generaal la yiraahdo Chi oo taageersanaa boqorka walaalkii ayaa xaqiijiyay in qofkii uu dilay uusan ahayn Qiin, laakiin uu ahaa Bayo. dhan kale, Shin ayaa hadda ogaaday in boqortooyadu ay khiyaantay Bayo, isla mar ahaantaana uu aad u carooday. markay doodu socotay, waxaa soo muuqanaya gacan ku dhigle uu soo diray boqorka walaalkii. wax kalena looma soo dirin, waa inuu dilaa boqorka. gacan ku dhigluhu wuxuu isla markiiba Shin ku qancinayaa inuu dilo boqorka maadaama uu ka dambeeyay in la dilo Bayo, isagoo la yaabay sida uu ogaaday inuu dilay boqorku. markuu dhageystay hadalkiisii, Shin ayaa weerar ku qaaday gacan ku dhiglihii. kadib dagaal xoogan oo dhex maray labadooda ayaa sababay dhaawac, isla mar ahaantaana Shin waxaa u suurta gashay inuu dilo gacan ku dhiglihii. dagaalka kadib wuxuu soo laabanayaa dhinacii boqorka, isla mar ahaantaana boqorka ayaa ka raaligelinaya wax ka soo dhacay, isagoo u sheegaya in waxani ay qornaayeen. sidoo kale wuxuu ku sabayaa Shin inuu ku soo biiro maadaama uu hadda boqorku damacsan yahay inuu sameeyo ciidamo cusub si uu walaalkii uga soo ceshto qasriga boqortooyada. isagoo aan ka labalabayn, Shin wuu ogolaaday arrintaa. dhan kale, boqorka walaalkii oo lagu magacaabo Sekeyo wuxuu dareemay niyad jab, isla mar ahaantaana aad ayuu uga cadhooday maadaama uu maqlay in weli boqorkii uu nool yahay. dabadeedna wuxuu amrayaa dadkii la socday inay u diraan gacan ku dhiiglayaal badan si ay u ugaarsadaan walaalkiisa weyn. maalintii xigtay, marka boqorka iyo Shin ay dhex marayaan meel kayna, waxaa si lama filaan u soo weeraraya gacan ku dhiigle isticmaalaya irbad suna. Shin ayaa markaa la dagaalamaya gacan ku dhiiglaha, isla mar ahaantaana ku guulaystay inuu seef madaxa kaga dhufto. kadib markuu si guul u dilay, Shin si lama filaan ayuu u dhacayaa oo uu suuxayaa maadaama irbadii sunta ahayd ee uu ninku ku muday ay jidhkiisa gaadhay. nasiib wanaag,
boqorku wuxuu ku guuleystay inuu badbaadiyo Shin markuu hurdada ka soo toosay waxay la yaabeen joogitaanka koox askara oo aysan aqoonin cidda ay yihiin. nasiib wanaag ciidankan ayaa noqday ciidamo hoos yimaada General Chan oo ahaa ninkii hore u kaxayn jiray Bayo. wuxuuna boqorku u sheegayaa in weli uu isaga raacsan yahay oo uusan la jirin walaalkii, sidoo kalena uu la dejinayaa xeelad ay ku soo ceshan karaan qasriga boqortooyada. dhan kale Sekeyo oo weli aan ku guuleysan inuu dilo boqorka wuxuu go'aansanayaa in dadkan hortaagan uu ka dhaadhiciyo inuu yahay boqor cusub. dhan kale boqorkii wuxuu dareemayaa rajo xumo sababtoo ah ma haysto ciidamo markaa ku filan. markuu taas maqlay mid ka mid ah saraakiisha ayaa kula talinaya inuu la kulmo reeraha degan buuraha isagoo ka codsanaya inay isbahays la sameeyaan si ay u soo ceshtaan qasriga boqortooyada. isagoo taa og boqorka ayaa isla markiiba aqbalay waxayna u soo ambabaxeen dhankii buuraleyda. kadib markay soo mareen safar dheer boqorka iyo ciidankiisii waxay yimaadeen goobtii, laakiin markay meesha yimaadeen weji fiican lamay kulmin. taas beddelkeedana ciidamadii ayaa soo weeraray. markuu hortaagan yahay amiirkii qabiilku boqorkii ayaa u gudbiyey ujeedadiisa isagoo ka codsanaya inay ka caawiyaan inuu dib u soo ceshto boqornimadiisa maadaama kursigii uu kala wareegay wiilkii ka yaraa. markay taas maqleen way diideen maadaama horey waxyeelo loogu geystay boqortooyadiisa, si la midna ciidamo badan laga laayay. boqorku ma rabo inuu si sahal u quusto, sidaa darteed wuxuu ka raali gelinayaa dhammaantood wax kasta oo ay horey ugu samaysay boqortooyadiisu. markay arkeen daacidnimadiisa iyo raaligelintiisa isla markaaba way aqbaleen waxayna bilaabeen inay ka caawiyaan sidii uu u soo ceshan lahaa boqortooyadiisa. intaa kadib boqorka iyo kuwii kaleba waxay bilaabeen inay qorsheeyaan inay jihooyin kala duwan ka weeraraan ciidamada walaalkii ka yar. Shin iyo General Jen ayaa loo qorsheynayaa inay noqdaan ciidamada ugu horeeya. boqorka iyo ciidamada buuraleydaba waxay noqonayaan ciidamada labaad. labadooda ayaa ka kala imaanaya laba jiho. isla markaaba dagaalkii ayaa bilaabmay iyadoo iskaashanayaan ciidamadii buuraleyda iyo ciidamadii boqorku. waxaa u suurtagashay inay jibiyaan in badan oo ka mid ah ciidamadii walaalkii ka yar. dhan kale Shin iyo ciidamadii u horeeyay waxay ku qasbanaanayaan inay la dagaalamaan bahal weyn maadaama uu awood weyn leeyahay. marka hore wuxuu u muuqdaa inaysan la dagaalami karin. Shin ayaa ugu dambeyntii u suurtagashay inuu dilo. intaa kadib kooxdii u horeysay ayaa gudaha u gashay qasriga boqortooyada waxayna halkan u joogaan inay dilaan boqorka walaalkii ka yar oo lagu magacaabo Sekeyo oo xoog ku haystaa boqortooyada walaalkii. si kastaba ahaatee Sekeyo oo kibir ka muuqdo ayaa isla markaaba u yeerayaa mid ka mid ah generaaladiisa waaweyn kaasoo lagu magacaabo Chi. Shin iyo Ji ayaa la isu ballamiyay si ay u dagaalamaan ninkii raaya reer ku haraya. dagaal aad u badan ayaa dhex maray oo qaatay waqti badan maadaama mid walba uu xirfadda dagaal ee seefta uu aad u yaqaano. si kastaba ahaatee Shin ayaa ku guuleystay inuu kaga takhaluso General Ji. kadib markuu arkay Chi oo hortiisa ku dhimanaya Sekeyo ayaa go'aansaday inuu ka cararo qasriga, laakiin albaabkii qasriga waxaa mar horeba sii hor istaagay boqorkii iyo ciidamadii buuraleyda. boqorku uma baahnaa dadaal badan oo uu ku bixiyo wuxuuna ku dhufanayaa hal seef Sekeyo isla markaaba uu dhulka ku dhacayaa. wax yar kadib General Okeya oo layna baray bilowga firinka oo ah generaalka ugu xoog badan boqortooyooyinka deriska ayaa u yimid si uu weydiiyo sababta uu dagaalamayo boqorkani. boqorka ayaa markaa ugu jawaabay sababta uu dagaalamayo inay tahay inuu soo ceshto qasrigiisa boqortooyada si aysan ugu takrifalin khaa'inul waddanku. sidoo kale wuxuu oranayaa waxaan damacsanahay inaan mideeyo dhammaan boqortooyinka Japan. markuu arrintaa maqlay General Okeya wuu ku taageerayaa arrintaa, sidoo kalena uu sheegayaa haddii garab uu uga baahdo inuu caawinayo. si kastaba ahaatee mid ka mid ah dadka taageersan Sekeyo ma uu aqbalin arrintaa wuxuuna markiiba amar ku siinayaa ciidamadiisa inay weeraraan General Okeya iyo boqorkaba. laakiin Okeya oo kalsoonidiisu ay buuxdo wuxuu si fudud uga adkaan karaa dhammaan askarta isagoo isticmaalaya seeftiisa weyn. generaalkii markuu arkay in ciidamadiisa la laayay wuu xanaaqayaa isla markaaba wuxuu weerarayaa boqorkii. nasiib wanaag Shin ayaa si degdeg ah seefta galka uga baxay isla markaana dilay ninkii. ficilada geesnimada leh ee Shin waxaa ammaanaya General Okeya isagoo markaa ku dhiirigeliyay hadal ah in maalin maalmaha ka mid ah Shin uu noqon doono mid ka mid ah generaalada ugu xoog badan. kadib markuu ammaanay Shin, General Okeya iyo ciidamadiisiiba way bixeen. hadda Sekeyo waa la jibiyey oo way dhinteen dhammaan generaaladiisii. boqorkii iyo ciidamadiisii waxay u dabaaldegayaan guushii ay gaadheen sababtoo ah waxay ku guuleysteen in qasriga boqortooyada ay dib u hantaan. sidoo kale qabiilkii buuraleyda ahaa ayaa iyaguna u dabaaldegaya guushan maadaama qayb ay ka ahaayeen. ka hor inta aysan bixin hogaamiyaha qabiilka buuraleyda
ay shiin siinaysaa seeftaas oo ay ku sharaftay maadaama uu halye yahay. Dhamaadka filimkana shiin wuxuu noqday mid ku soo dhawaaday riyadiisii oo ahayd inuu noqdo generaal weyn. haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan channelka subscribe saaro, sidoo kale muuqaalkan like gare si markaa dad badan u gaaro. waana kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan kaga tagayaa Ramadaan Kariim.